بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubanaha qodobada barnaamijkan aan idinku haynana waxa kamida waxa isa soo taraya khilaafka ka dhex aloosan madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil goordhaweyd Trump ayaa si cad u sheegay in uu uga digay Netanyahu inuu qaado wax tilaabo militari ah oo ka dhana nuclear-ka Iran maxay tahay sababta arrintan iyo digniintan ugu jeediyay Netanyahu xog baan idinkaga haynaa iyo wararkii ugu dambeeyay Iran oo si iskhilaafsan uga hadashay wadahadalada nuclear-ka ee ay la leedahay Mareykanka barnaamijka sidoo kale waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Gaza iyadoo xoogaga iska caabinta ee Falastiiniyiintu ay soo bandhigeen muuqaal ay ku beegsanayaan gaadiidka dagaalka ciidanka Israa'iil oo ay ka mid yihiin dabaabaadiyo Mareykankuna waxay ka hadleen heshiiska xabad joojinta ee Xamaas ay sheegtay inay la gaartay ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe Israa'iil waxa ka taagan xaalad culus waxa la qabsaday xaruntii xisbiga Likud ee Netanyahu dhinaca kale waxay soo tiraya khilaafka ka dhex jira gudaha Israa'iil la xiriira heshiiska xabad joojinta iyadoo dhinaca kalena ay socdaan barnaamijyo waaweyn oo dagaalka lagaga soo horjeedo sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aan idinku hayaana waxay ku aadan tahay sheeko xiiso leh oo ku saabsan buraashkan cadayga ee ku shaqeeya elektroonikada oo sababay burbur qoys maxayse tahay sababto warbixin cajiib ah oo la yaab leh ayaan idin haynaa khilaaf ayaa waxaa la sheegayaa in uu ka dhex aloosan yahay Netanyahu iyo Donald Trump weliba uu sii tarayaa khilaafku waxaana la sheegayaa inuu hadda bixiyay gun iyo caar sababta ugu weyn waa arrinta dagaalka Gaza iyo wadahadalada Iran Mareykanka uu kula jiro goordhaweyto waxaa shir jiraad qabtay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump su'aal ayaa la weydiiyay la xiriirtay arrinta nuclear-ka iyo wadahadalada inay socda Israa'iil mowqifkeeda war ma ka haysaa dhinaca kale Israa'iil waxay u hanjabaysaa Iran inay weerar ku qaadana waa la filayaa haddaba muxuu kaga jawaabay Donald Trump aynu eegno wararkaasi iyo kaaradaha wararka wixii imika ay ka qoreen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa daboolka ka qaaday in uu uga digay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu qaado wax tilaabo militari ah oo ka dhana Iran Trump oo ka hadlayay qayb kamid ah wadahadalkii qadka telefoonka uu kula yeeshay Netanyahu ayaa farta ku fiiqay in uu sheegay in tilaabo kasta oo laga qaado Iran aysan xilligan ahayn mid habboon maadaama aad loogu dhow yahay xal waxaase uu xusay in taas laga yaabo in ay isbedesho daqiiqad kasta Trump ayaa carabka ku adkeeyay in Iran ay doonayso heshiis taas oo badbaadin karta nolol badan maadaama la burburin karo shaybaarada nuclear-ka Iran haddii loo baahdo iyadoo aan la adeegsan gantaallo oo aysan dad dhiman waa sida hadalka uu dhigay mas'uuliyiin Mareykan ayaa xaqiijiyay in maamulka Trump iyo xukuumadda Israa'iil ay isku khilaafsan yihiin wadahadalka la xiriira barnaamijka nuclear-ka ee Iran waxaana ay sheegeen in Trump iyo Netanyahu wadahadalkii qadka telefoonka ay ku yeesheen ee ugu dambeeyay dood kulul ay ka yeesheen qorshaha Israa'iil iyo hamiga ay leedahay ee la xiriira inay weerar ku qaado xarumaha nuclear-ka Iran si ay u carqaladayso wadahadalada wargeyska New York Times ee ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa soo xigtay mas'uuliyiin ku sugan Washington oo sheegay in hajabaadda weerar ee Israa'iil ay sababtay in Trump uu la hadlo Netanyahu toddobaadkii hore isagoo si cad uga digay in uu tilaabo qaado taas oo khatar gelin karta wadahadalada Mareykanka iyo Iran ee ku saabsan heshiis nuclear oo cusub mas'uuliyiintan wargeyska uu soo xigtay ayaa waxay sheegeen in intii wadahadalada lagu jiray xaaladdu ay kacday oo hadallo adag oo taagtaagan ay dhex mareen labada nin iyadoo la sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil ku andacooday waa si hadalka loo dhigay in Iran xilligan ay tahay daciif laakiin aysan si ahaan doonin imikan ay ku habboon tahay in la weeraro Trump ayaa dhankiisa wuxuu sheegay waa si hadalka loo yiri in daciifnimadaasi ay ka dhigayso xilligan Iran mid ku habboon inay miiska wada xaajood ka timaado iyadoo cidna aysan ku dhiman mas'uuliyiintu waxay sheegeen iyagoo la hadlayay wargeyska New York Times in Netanyahu uu ku hanjabay inuu fashilin doono wadahadalada barnaamijka nuclear-ka ee Iran isagoo weeraraya xarumaha muhiimka ee Iran balse xafiiska Netanyahu ayaa waxay beeninayaan wararkan warbaahinta Mareykanku ay baahisay ee la xiriira qorshaha Iran ee weerarka
haddaba xaaladdu halkaas ayay maraysaa waxaana la sheegayaa labada nin inay meel adag ka marayso Netanyahu waxa ka go'an baa leeyahay sida qobarada ay sheegayso in uu fashiliyo wadahadaladan maxay tahay sababta marka qobarada waxay leedahay saddex qodob ayaa ugu wacan arrintan waa tan koowaad Iran oo wacd ku martay in ay burburin doonto Israa'iil oo 2,000 oo gantaal ay ku dhafan doonto sidoo kale ay burburin doonto dhammaanba saldhigyada Mareykanku ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe sidoo kalena taa ay saameyn karto wadamada khaliijka oo haddii la burburiyo xarumaha nuclearka Iran markaas Iran inay burburin doonto ama gubi doonto ceelasha shidaalka arrintaas waxa leeyahay waa qodobka koowaad tan labaad waxay tahay ayaa la leeyahay Trump waliba xitaa wuxuu sheegay 2 saacadood inuu wadamada Sacuudiga Imaaraadka iyo Qatar uu kaga helay lacag gaaraysa 5.1 trilyan marka wuxuu yiri 2 saacadood ba lacagtaas ku helay buu yiri dadka marka arrimaha la socda waxay leeyihiin wadamada khaliijka ee heshiiskan ballaaran la galay Donald Trump ma doonayaan inaba haba yaraatee wax dagaal ah shuruudaha ay ku xiran waxa kamid ayaa leeyahay gobolkan dagaal inuusan ka dhicin gaar ahaan in la weerin Iran haddii kale lacagtaas inay burburayso arrinta saddexaad waxa weeyaan Trump waxa leeyahay shaki ayuu wuxuu ka qabaa Netanyahu inuu ku riixayo Israa'iil dagaal inay soo geliso Mareykanka wuxuu kaloo qodareynayaa baa leeyahay meesha ku jirta ayadana in ay isfahmaan Iran iyo Mareykanka oo heshiisi ay galaan dhanka dhaqaalaha la kala faa'iideysto diblomaasi reer Iran ayaa hadda kor wuxuu yiri la yaab ma leh buu yiri inaynu aragno Donald Trump oo imaanayo yiri Tehran oo la kulmaya Ayatollah Ali Khamenei Netanyahu marka waxa leeyahay waxaas oo dhan ayuu isku dhufsaday laba ku dar waxa u soo baxday Israa'iil meesha inay ka baxayso reer galbeedkana waxay inta badan ka dhaadhicin jirtay Iran baa qatar nagu ah haddii arrintaas ay dhacdo cid uu la heshiinayo iyo cid uu la dagaalamayo iyo meel u socdo mare ayaa leeyahay Netanyahu xaaladdu marka halkaas ay maraysaa labada nin waaye sheekada marka intaana ka bixin xagga Iran aynu eegno warar iskhilaafsan baa soo baxaya waxaynu ka hormaraynaa mas'uul ka tirsan barnaamijka nuclearka Iran oo leh waxaanu diyaar u nahay inaan albaabada u furno kormeerayaal Mareykan inay yimaadaan xarumaheena oo ay kormeeraan warbixin abuurtani ku aadan waxa soo jeedinaysa wariyahayaga Nimca Cabdikariin Timacad Iran waxay suurtagal ka dhigtay in hay'adda ilaalinta nuclearka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ay kormeerayaal Mareykan ah u dirto xarumaha nuclearka Iran haddii wadahadallada u dhaxeeya Tehran iyo Washington ay noqdaan kuwo guuleysta sida uu sheegay madaxa nuclearka ee Iran Mohammad Islami Tehran iyo Washington waxa la filayaa inay yeeshaan wareeg lixaad oo wadahadallo ah oo ku saabsan barnaamijka nuclearka Iran iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saadaaliyay wax wanaagsan ama natiijo wax ku ool ah oo ka soo baxda wadahadallada wax iska caadi ah inaan la ogolaan kormeerayaal ka socda dalal cadow ah balse haddii heshiis nuclear ah la gaaro waxa suuragal ah inaan ogolaano kormeerayaasha Mareykanka ee u shaqeeya hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomiga ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA inay booqdaan xarumaha iyaga nuclearka ayuu Islami ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay Tehran labada dal ayaa isku khilaafsan arinta kubcinta uraniumka Iran taasi oo Washington ay sheegtay inay tahay wado suuragal ah oo lagu sameeyo hubka nuclearka ana in la joojiyo gabi ahaanba Tehran waxay ku adkeysanaysaa in barnaamijkeeda nuclearka uu yahay mid loo adeegsado ujeedooyin rayidka ah waxayna u aragtaa warshadaha kubcinta uraniumka inay yihiin qadcas oo aan gabi ahaanba laga talaabi karin kubcinta uraniumka waa asaaska iyo tiirka warshadaha nuclearka ee dalka bal ka waran haddii qof loo ogolaado inuu yeesho xarun qaybisa korontada iyo shabakada balse aan loo ogolaan in uu yeeshado warshado tamarta dhaliya ayuu yiri Islami wargeyska The New York Times ayaa goorsii horeysay oo maanta ah sheegay in saraakiisha Mareykanka ay ka walaacsan yihiin in Israa'iil ay go'aansato inay duqeymo ku qaado barnaamijka nuclearka Iran iyadoo aan wax digniin ah bixin Iran oo si cad u sheegtay inay doonayso inay Israa'iil baabi'iso waxay si joogto ah u beenisay inay raadinayso in ay helaan hubka nuclearka si kastaba ahaatee waxay sare u qaaday heerarka kubcinta uraniumka ee aan lahayn ujeedooyinka nabadeed waxayna caqabad ku noqotay kormeerayaasha caalamiga ah ee hubinaya xarumaheeda nuclearka
Iran waxay ballaarisay awoodeeda gantaalada ridada dheer ah iyadoona mas'uuliyiinteedu ay si isa soo taraysa u sheegayaan inay suurtagal tahay inay u jihaystaan sameynta bam nuclear ah. warkaas war ka duwan ayaa goor dhaweyta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Iran. aynu eegna warkaasi. afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Ismaaciil Baqai ayaa waxa uu si kulul u beeniyay wararka sheegaya in Iran ay aqbashay ama ay ogoshahay ama raalli ay ka tahay in la kormeero xarumaheeda, waxaana uu tiri warkaasi inuu yahay war aan waxba ka jirin. shir jaraa'id oo galabtay uu ku qabtay magaalada Tehran isagoo la hadlayay dadka wararka fidiya, Ismaaciil Baqai waxa uu sheegay in wararkaasi gabi ahaantoodba ay yihiin kuwo aan jirin, isla markaasna Iran aysan muujin wax dabacsanaan ah oo ku saabsan barnaamijka kobcinta uraniumka. Ismaaciil ayaa ku nuuxnuuxsaday in sii wadida kobcinta uraniumku ay tahay qayb muhiim ah oo aan laga goyn karin warshadaha nuclearka Iran, isla markaasna ay tahay mabda asaasi ah oo aan la isla dhaafi karin. waxaa intaasi uu ku daray sida warbaahinta gudaha ay sheegtay in wax kasta oo ka soo horjeeda ama weeqaya xaqan ay tahay mid aan la aqbali karin. marka laga hadlayo wareegga lixaad ee wadahadallada dadban ee u dhexeeya Iran iyo Mareykanka, afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu sheegay in ay socdaan wada tashiyo ku saabsan waqtiga iyo goobta lagu qabanayo wadahadallada xiga. waxaana uu tilmaamay in saldanadda Cumaan ay ka sugayaan ama ay shaacin doonto waqtiga iyo goobta, isla markaasna ay socdaan wada tashiyo arrinkaasi la xiriira. intaa waxaa dheer waxaa kaloo uu caddeeyey in qodobada keliya ee laga wada hadlaya ee miiska saaran ee ay isla qaada dhigayaan labada wafdi ee Mareykanka iyo Iran ay yihiin nuclearka iyo qaadista cunaqabataynta. wuxuu yiri wax kale wada hadalka kuma jiraan, wax kale oo laga heshiinayana ma jiraan. hagaag macluumaadkaasi wixii ku soo kordha waynu arki doonaa. goordha waxaan u gudbi doonaa Israa'iil oo xaalad adag caawa ay ka taagan tahay. xafiiskii xisbiga Likud ee Netanyahu oo la qabsaday, khilaaf culus oo jira, Mareykanka oo ka hadlay heshiiska xabajoojinta ee la doonaya dagaalka Gaza in lagu soo afjaro, xogaga iska cabinta Falastiiniyiinta oo iyaguna qaaday howlgal, waliba muuqaalo ayay soo bandhigeen. dhowr wadan oo reer Yurub ah oo iyaguna ku dhawaaqay tillaabooyin Israa'iil ka xanaajiyay. Israa'iil iyo wararkeeda way noo soo socdaan, iyo Mareykanka waxa uu ka yiri arrimaha xabajoojinta, laakiin xagga Gaza aynu ka hormarno. Israa'iil waxa la sheegayaa tan iyo maanta 55 qof inay ku dishay duqeymo kala duwan oo ay ka geysatay mareyka Gaza, sida laga soo xiganayo mas'uuliyiinta dhanka caafimaadka, iyadoo lagu soo waramayo in meelo kala duwan oo kamid ah jiida Gaza duqeymahaasi ay ka dhaceen. telefishinka Al Jazeera ayaa goor dhaweeyay waxa uu baahiyay muuqaalka xogaga iska cabinta Falastiiniyiinta iyagoo beegsanaya guri ay ku sugnaayeen ciidamo Israa'iiliyiin oo ku yaala Beit Lahia. sidoo kale muuqaalka waxa ka muuqanaya taangi nooca markavaha oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin oo isna la gubayo. howlgalkaasi ayaa xogaga iska cabinta Falastiiniyiintu si toos ah ay u duubeen dhammaan muuqaalada. waxaana sidoo kale ay soo bandhigeen muuqaal kale oo isna ku saabsan askar ka tirsan ciidanka Israa'iil oo ay tooganayaan. howlgaladan ayaa waxaa loogu magac daray dhagaxanta Daa'uud, iyadoo la sheegay in xogaga iska cabinta Falastiiniyiintu ay kordhiyeen weeraradaasi. hagaag barnaamijkan ka horreeyay ee wararka caawa waxaan idinkugu soo gudbinay Xamaas oo sheegaysa in heshiis ay la gaartay ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe Steve Witkoff, arrinkaasi oo ku saabsan heshiis xabajoojina. haddaba goor dhaweeto shir jaraa'id ayaa waxaa ku qabtay aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ergeygiisa gobolka bariga dhexe Stephen Witkoff. haddaba aynu ka hormarno Witkoff waxa uu sheegay iyo hadaladiisa. Steve Witkoff ayaa waxa uu sheegay in rajo wanaagsan ay qabaan oo la xiriirta in la soo afjaro dagaalka ka socda mareyka Gaza. wuxuu sheegay in Mareykanku isla caawa uu gudbin doono hindisaha soo jeedintiisa. qubrada waxay leedahay waxay u badan tahay hindisahan in loo gudbinayo dhanka Israa'iil. wuxuu yiri mar dhow waxaan diri doonaa warqad cusub oo ku saabsan shuruudaha dagaalka Gaza, isagoo tilmaamay in warqadaasi la diri doono galika dambe ee maanta, waa xilliga Mareykanka dabcan oo imika ay weli maalin u tahay. wuxuu kaloo cadeeyay in Mareykanku uu doonayo waa si hadalka u dhigay xal waara oo colaadan ka taagneed gobolka bariga dhexe lagu xalilo. wuxuu yiri xabajoojin kooban ayaynu qaadan doonaa, laakiin waxaa jiri doona buu yiri heshiis guud oo rasmi ah. waxaa sidoo kale rajo uu ka muujiyay taas in ay dhaqan gasho. haddaba dhanka Israa'iil aynu eegno
wargeyska lagu magacaabo iyo dhaco taxranood ayaa waxa uu ka soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan Israa'iil in uu jiro khilaaf u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil oo la xiriira arrimahan xabajoojinta. Haddaba aynu eegno wargeyska arrinta isagoo faahfaahinaya. Warbixintu waxay sheegaysaa in wakiilka Mareykanka ee bariga dhexe Stephen Witkoff in lagu wado caawa inuu Israa'iil u soo bandhigo hindiso cusub oo lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabajoojina. Si kastaba ahaatee qodobka ugu adag ee muranka ka taagan yahay ee Israa'iil ay diidan tahay ayaa ah wax damaanad ah oo ku saabsan dagaalka in la joojiyo. halkaa marka waxayna dul istaagno. Hamas waxay sheegtay inay kula heshiisay Steve Witkoff dagaalka si rasmi in loo joojiyo. Mareykanku damaanad inuu ka noqdo Israa'iil inay kala baxayso ciidankeeda Mareykanka Gaza. Gargaarku inuusan ahayn gargaar xanibaad ku imaanayso ama la yiraahdo dhowr boqol oo gaari iyo 20 gaari gargaarka sidii la doono inuu galo Mareykanka Gaza maxaabiistana la soo daayo. Israa'iil marka waxay leedahay qodobkaas ah damaanada ciidanka Israa'iil inay ka baxaan Mareykanka Gaza ayay ku diidan tahay Mareykanka. Aynu ku socono warbixinta waxay kaloo sheegaysaa in Israa'iil ay si cad uga soo horjeedo damaanada ku qasbaysa dagaalka in la joojiyo sida uu leeyahay wargeyska iyo dhaco taxranood. Waxa leeyahay arrintan waxa la filayaa in Israa'iil culays saa'id ay kala kulanto Mareykanka. Israa'iil sidoo kale waxay ka soo horjeedaa in Mareykanka wada xaajoodka uu la yeelanayo toos Hamas waxayna ka baqaysaa baa leeyahay in la xadido awoodeeda mustaqbalka ee xitaa military ama tilaabo military ay qaadi karto. maxaa lagu macnaynaya marka arrintan halkaan aan dul istaagno. Israa'iil waxay raadinaysaa xabajoojin lamida tii Lubnaan oo kale. maanta ugu dambeysay duqeyn ka geysanaysay Lubnaan waxayna military Israa'iil sheegay inay dileen xubin ka tirsan ururka Hezbollah. isaga marka waxay doonaysaa xitaa hadday ciidankeeda la baxdo ama ciidanka meesha ay ku haysataba inay weerar samayn karto oo maalintii doonto cilayn karto. Mareykanka kale marka waxa leeyahay arrintaas ayuu diidan yahay. Hadii la yiraahdo heshiis waa heshiis. Sababta Hamas waxa leeyahay ma isku soo laabanayna anaga. Maxaabiista oodan ka qaadayna Israa'iil ciidankeeda hala baxdo yaan isku soo laabanin. dhinaca kale khilaaf weyn marka Israa'iil gudaheeda ka jira marka caawa. Isla markiiba waxa hadlay wasiirka mayalka adag ee maaliyadda Smotrich. Muxuu sheegay aynu eegno warbixin arrintan ku aadan oo ay qorayso warbaahinta Israa'iil. Waxa leeyahay waan u soo laaban doonaa Donald Trump arrintan ka hadlaya. wasiirka waxa leeyahay maaliyadda Israa'iil ayaa waxa uu sheegay inuusan qayb ka noqon doonin dagaalka in la joojiyo ama xitaa heshiis qayb ahaan in la gaaro. macnaha heshiis ku meel gaar ah ama xabajoojin kooban oo 3 asbuuc 4 asbuuc ilaa adigu 2 bilood waxaas oo weydiiday. wuxuu leeyahay wasadalku yiri arrintan waa waali ma aqbali doono ayuu yiri taas inay dhacdo. wuxuu ku tilmaamay inay tahay nacasinimo wasadalka u dhigaya in la joojiyo cadaadiska. wuxuu sheegay in heshiis qayb ahaan in la saxiixdo Hamas uu yahay mid siinaya oxygen iyo nolosha ku soo celinaya wasadalka u dhigay. laakiin qubrada waxay leedahay ciidankiisa oo qaylinayaba. isagu wuxuu haystaa Hamas neefta in lagu dhajiyo laakiin ciidanka Israa'iil waxa leeyahay qaylinaya waxay leeyihiin godadka aynu aragnay meesha waxa ka taagan wax ciyaar ma ahan. ninkii xitaa baanduulaha cusub ee la magacaabay Iyal Zamir afku qayli yeeriyay maanta. wuxuu leeyahay dagaalkan waa dagaal adag buu yiri. Netanyahu ka sii horeeyay oo dhowr maalmood ka hor hadlay. haddaba Trump marka muxuu ka yiri arrintan isla shirkii jaraa'id uu ku sugnaa Steve Witkoff ayaa Donald Trump ka hadlay. aan ku laabano warbixinta. Trump ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo in si degdeg ah dagaalkan lagu soo afjaro. wuxuu yiri Steve Witkoff waxaan faray in uu gudbiyo dokumentigan waxaana ka dalbanayaa buu yiri dhammaan dhinacyadu inay aqbalaan. waxaan rajaynayaa buu yiri oo waliba si adag aan uga shaqeynayna gargaar degdeg inuu galo Mareykanka Gaza. waxa uu sheegay in la doonayo in xaaladan guud ee Gaza si degdeg ah lagu soo afjaro. wuxuu yiri dadka waxay u baahan yihiin gargaar xaalad adag ayaa ka jirta Mareykanka Gaza. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayuu kaasi ahaa. waa hagaag dhowr wadan reer Yurub ayaa warbixin ku saabsan goordhaweyd soo saareen iyo xafiiskii Netanyahu xisbigiisa oo imika la qabsaday. intaana sheekaas u gudbin waxaynu eegaynaa war hadda soo dhacay. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar ayaa isna waxa uu sheegay in 12 maalmood ka hor ay ogolaadeen heshiiska xabajoojinta laakiin wuxuu yiri Hamas ayaa diiday. hadda wuxuu yiri macquul ma aha buu yiri Hamas inay noo soo gudbiso annaga hindisa kale.
waxaa kaliya annaga aan doonaynaa buu yiri waa in la soo daayaa maxaabiista annaga wax kale ma lihiin buu yiri dana arrinta marka waxay u muuqataa baa leeyahay in Netanyahu uu aqbali doono heshiiskan Israa'iil ay ka dhigayso inay 12 maalmood ka hor aqbashay xitaa Mareykanka oo hadlin ayay Xamaas maanta war soo saarto ay sheegtay in heshiis la gaartay Stephen Witkoff marka xaaladdu meel adag bay maraysaa Mareykanka iyo Netanyahu waxay isla joogaan barxadii kala raabtadii waanu arki doonaa cidda soo hartay sidii la leeyahay baraha bulshada iyo warbaahinta arrintaas ayaa aad uga socota waa hagaag Israa'iil inta ka bixin gudaheeda goordhaweyto waxaa la sheegayaa barnaamijyo ballaaran inay bilowdeen bacdama maanta ay ahayd maalintii 600aad ee dagaalka Gaza haddaba aynu eegno barnaamijyada socda iyo wararka ugu dambeeya wargeyska Maarif ee ka soo baxay Israa'iil iyo telefishinka 12 ayaa waxay sheegayaan in booliiska Israa'iil iyo barnaamijyaasha isku dhaceen waxa la leeyahay 30 kamid ah barnaamijyaasha ayaa xoog waxay ku galeen xafiiska xisbiga Likud ee uu hogaamiyo Netanyahu ee ku yaal magaalada Tel Aviv dhinaca kale waxa la leeyahay ayaguna boqolaal kale oo barnaamijyaasha kamid ah ayaaba gudaha ku sugan iyadoo wararku intaas ay ku darayaan in 30 kamid ah la xiray waxaana wararku intaas ku daraya in booliiska isku dayayaan in boqolaalkan barnaamijyaasha ee ka soo horjeeda dagaalka ee qabsaday xafiiska Likud sidii looga saari lahaa barnaamijyo ballaaran ayaa socda xaaladuna meel adag bay maraysaa baa leeyahay waaye afar wadan oo reer Yurub ayaa iyaguna goordhaweyta war soo saaray wadamadan waxay kala yihiin Spain, Ireland, Slovenia iyo Norway waxay si wada jir ugu baaqeen in loo baahan yahay in qaramada midoobay si buuxda ay u aqoonsato dawlad Falastiiniinta ay leedahay isla markaasna kursi rasmi ah la siiyo bayaankana wada jirka ayaa waxay ku muujiyeen in aqoonsiga Falastiin uu xal dhab u yahay dhibaatada ka jirta gobolka gaar ahaan khilaafka iyo colaadda ka dhex aloosan Israa'iil iyo Falastiin Falastiiniintu waxa la yiri muddo dheer ayay raadinayeen xaqa xornimada qaramada midoobay annaguna waa taageerina baa la yiri wadamadan sidoo kale waxay sheegeen in loo baahan yahay si degdeg ah lagu aqoonsado dawladda Falastiiniintu ay yeeshaan waxaana ugu baaqeen wadamada midowga Yurub inay ka faa'iideystaan isbedelkan oo ay kor u qaadaan rajada wadahadal nabadeed ee lagu dhalin karo waliba arrinta waxay ku soo beegmaysaa iyadoo bisha dambe shirweyne ay qaban doonaan Sacuudiga iyo Faransiiska inkastoo qaramada midoobay ay marti gelin doonto laakiin labadaas wadan ayaa riixaya Faransiiskuna Macron wuxuu sheegay sidaad kula socoteen barnaamijkeena goordhaweyta baxay inay ka go'an tahay aqoonsiga dawlad Falastiiniintu ay yeeshaan marka xaalado adag baa socda arrimahaasina waynu arki doonaa waxay ku soo kordhaa weerarada Xuutiyiinta saameynta ay ku yeesheen gudaha Israa'iil warbixin ku saabsan aynu eegno wargeyska Maarif ee ka soo baxa Israa'iil ayaa waxa uu sheegayaa in mid kamid ah shirkadaha reer Yurub gaar ahaan shirkadda leerada Ryanair duulimaadka ay joojisay taas saameyn iyo dharbaaxo kulul inay ku noqotay rakaabka Israa'iil sababtu waxay tahay diyaaradan waa diyaarad qiimaheedu uu jaban yahay xagga tigidhada diyaaradan ayaa waxa la sheegay inay sheegtay inta jeer ee ay baajisay duulimaadyada ku tagi jirtay Israa'iil inay ku qasaartay 3.8 milyan oo euro sabahan sidarteedna waxay sheegtay shirkadu gabi ahaanba inay joojinayso duulimaadka ay ku tagi jirtay Israa'iil waayahay haatan waxaynu soo gaarnay sheekada ugu dambeysay barnaamijka aynu ku soo gabagabeyn jirnay alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh horta teknolojiyadan casriga ah faa'iidana waa leedahay qasaarana way leedahay inkastoo laga faa'iideeyo haddana waxay keeni kartaa dhibaato aad u culus waddankan UK ayaa waxaa ka taagan sheeko la yaab leh nin arrimaha baaritaanka aad ugu fiican oo dadka khibradda leh muddo 20 sano ayaa waraysi la yeeshay markaas waxa la weydiiyey waxyaabihii kugu yaak badnaa intaad baaritaanka ku jirtay arrimaha caynkan oo kala maxaa kugu yaab badnaa wuxuu yiri waxa igu yaab badnayd markii ay ii timid buu yiri haweeney hooyo ah oo 2 carruur dhashay oo sheegaysa in ninkeedu u khiyaanay marka ninka waxa la yiri arrintu sidee bay ku dhacday wuxuu yiri haweeneydu waxay sheegtay in ninkeedu oo la saaxiibay haweeney ay daris yihiin laakiin sidee loogu ogaaday marka sheeko cajiib ah sawirka aan tusno marka halka waxa idinkaga muuqda waa brushka lagu cadiyo ee electronicada
laakiin sheekada la yaabkeeda waxa weeye buraashkan wuxuu leeyahay ab electroniga oo hooyada ay u tala gashay labadeeda carruurta ah inay ku ogaato inay cadaydeen mobilkeeda ka fiirsataa kadib waxay leedahay markaa okay adigu maad cadayeen xilligaas adigu aad cadayatay xilligaas ayaa lagu cadayday saacadihii iyo daqiiqadihii ayuu sheegayaa marka abkaas waxa isku xiran cadaygan brushka electronicada ah iyo mobile haweeneeda ay ku xiratay ama ku shubatay ama ay ku soo degsatay mobilkeeda dabcan waad garanaysaa abka maxaa dhacay marka shaqada la yaab kale waxay noqotay haweeneedii shaki baa galay waxay aragtay in cadayga la isticmaalo xilli aysan filin guriga inuu joogo ninkeeda iyo carruurtaba ayadu way shaqaysaa marka asna wuu shaqeeyaa labadooda markaa shaqada waxay kala galaan laba shaqo kala duwan ilmahana iskool baa la geeyaa guriga waa cidlo laakiin haweeneedu waxay ku aragtay mobilkeeda ama abka subaxnimada 10 subaxnimo 11 subaxnimo 9 iyo barka ayadoo la isticmaalay cadayga buraashka ah shaki baa galay marka maalin mamnaha ka mid ah ayay haddana waxay ogaatay 10 iyo 48 daqiiqo la isticmaalay cadaygii albaabkii way soo gargaraacday ninkeedii iyo haweeneydii oo la saaxiibay ayaa guriga ku sugan sheekadu way qaraxda marka furiin bay gaartay waxay noqotay in la kala tago inkastoo dee dabcan aysan wanaagsan in la isqiyaano laakiin haddana waxaa leeyahay aaladahan electronicada laftigooda yaab ayay leeyihiin hadda kahor halka waxaan idinkaga soo daynay sheeko ku saabsan shukumaadna shiinaha leeyahay wuxuu ku xirtay camero oo haddii musqusha aad tagto oo shukumaankaaga aad meel surato laga yaabo inuu ku duubayo ma ahan in dabcan lagu dacaydeynayo shiinaha laakiin wax walba ayaa ka soo hortooba waynu aragnay oo keere la leeyahay waxa ku xiran camero saacad la leeyahay guluuska laftigiisa shaarka ama jaakada sidoo kale xitaa qarimaanta muhiimadda marka waxay tahay aaladda horta inaan la aamininba weliba ayaantan aad wax ugu batay soomaalida dad nolol dhex martay oo isguursaday xitaa oo leh camera laga duubay waxyaala caynkaasi oo kala maxaaba keenaya marka horeba in la iska duubo kamerada horta sideedaba gabadha maxay u ogolaanaysaa ninka soo isagu madiyuusba ninka duubaya xaaskiisa kamerada ka duubaya waxyaala laga fiican yahay marka aaladan yaan la aaminin maalintaas waxaan ka akhrinayay meelba waxaan ka akhriyay haweeney leh mobilkayga qolka yaal dharba kuma gashadaba haddaan dharka iska bedelayo meel gaaraan soo dhigaa telefoonka iyo mobilka dhanba marka aaladan waa laga faa'iideysanaya laakiin ha la iska ilaaliyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qubanaha caawa waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka intaynu ku kulmi doonaa barnaamijkan mid lamid ah haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waana mahadsantihiin nabadgelyo